waxaan ku bilaabayaa degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxa ka dhacay qarax waxa uuna ka dhacay xaafadda la yiraahdo Oodweyne guri lagu diyaarinayo qaraxaas ayuuna ka dhacay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay siday noo xaqiijiyeen dad ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay meel ka agdhow sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay jirto dhimasho inta hadda la xaqiijiyay waxa ku dhintay 2 qof tiro kalena waa ay dhaawacmeen waxaana la sheegay qaraxaasi in uu dhacay fiidkii hore ee caawa guri lagu xiriyana oo ka dhacay qof ka mid ah dadka ku nool xaafadda oo qaraxaasi ka dhacay oo tagay goobta ayaan telefoonka kula hadlay caawa qaraxa walaal wuxuu ka dhacay deegaanka xaafadda Oodweyne agagaarka shanta barxad ee burin lagu dheelo gadaasho dhabarkooda meel u jirto ilaa iyo 7 guri camal meel u jirto ayuu qarax ka dhacay abaar saacad markii ay ahayd maqribadii oo salaadii lagu jiray ayaa waxa ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn qaraxii uuradii ay qabsadeen aniga waxaan ahayn dhalinyaro meesha ku badku dheelaysay qaraxii markaan meesha ku yaacnay meesha tagnay waxa indhihiisa saaray guri burburay iyo waxa indhihiisa saaray guri ka dhawaajin gadii ka fiiqmeen iyo waxa arkay indhihii waxaan saaray meesha ay wax ka dhaceen u jirto 20 mitir oo kale meel u jirto waxa ka arkay madax go'an oo eg madax dumar oo tim badan leh iyo waxa ka arkay iyo wadne oo qof ku arkay iyo aray meesha macnaha wax ku gaareen dadka deegaanka oo meesha bulshada meesha oo ku yaaceen darteed meesha waxa meesha dadka markay meesha ku wada yaaceen ayaa meesha waxa yimaaday bulshada aad u tiro badan meesha dadka tiradooda oo dadka bulshada meesha maadaama ay tahay xaafad ayaa meesha ina macnaha toos u galno meesha toos wixii soo wada aragna inuu fiilgaliyay waayo waxaan ka rabaa qaraxa dhacay guriga ka dhacay muxuu ahaa ma qarax gaari ku xirnaaba mise waa qarax caadi qaraxa guriga ka dhacay aniga ku markaa meesha u carareen waxa isdiini wax mastacmiya ma ahayn wax waa meesha wax guriga wax ka dhacay waay guri oo u dhawaynay jingadiga ka fiiqmay waayo adigu ma dul istaagto ma aragtay dhimashada qofkan dumarka aad ku tilmaamtay aniga waa arkay madax badeed oo macnaha qof dumar u eg oo go'an waa arkay iyo wadna meel gaalo iyo calool iyo ari iyo waxaas meesha waa ku aragnay marka aniga meesha tagnay waxa ku aragnay jingadihi guriga ka dhawaay oo macnaha fuqay dumar uunayo oo dhahay ilmaheeni aaway oo uunayo waa aragnay kadib waxaa imaaday muddo meesha 40 daqiiqo kadib ayaa waxa soo gaaray ciidanka xasilinta marka wadnaha ma kaligood meel yaaleen mise way faniineen wadna faniinay oo meel gooni yaalo waa arkay ishiidana saaray waayo waxaan ka rabaa guriga madada deganaa oo qarax ka dhacay mise guri aan la deganeyn buu ahaa guri caadi loo degan yahay oo ahaa oo guri oo jinkad dacweyne oo ahaa markii guri wax meesha ay ka dhaceen guri ka dhawaajin qarax awoodiisa darteed jingadii ayaa ka biibay waan garta marka xaafadda wax ka dhaceen ma xarun ciidan ba ka agdhow mise xarun dawladeed mise xaafad caadi oo aan meel dawladii ku shaqeyso ku oolan way dawlad meeshan ka dhow waa meel macnaha dad caadi ay degan oo shacab meel xeer ciidan dhow xataa ma aan dadka xataa mu dhow gurigaas wax ka dhacayaan guri oo wuxuu ahaa dacweyne jingad dacweynaha ka samaysan guriga markii oo qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa isqabsaday uuro iyo dadkii bulshadii oo guriga oo ka cararay oo saxay meesha wax ka dhacay inay soo fiiriyaan oo rabo dadka meesha qasaaraha ka dhacay waa mid aantiyad mid nafeed waayo waxa la ii sheegay in xoolo ku dhinteen oo meesha ari u ka agdhawa oo xira ari ku tiilay tirada xoolaha ma loo gaamay si jirta dhimashada wallahi hadda lama guriga macnaha jingadi wuxuu dhan way isdhexyaaleen meeshii markii dadkii tiradooda awgeed meesha loo geli waayey waxaa kaloo meesha oo ku jabay baalo oo koronto oo mareysay ayaa meesha ku jabay korontadii inay dadka qabsataa waa laga baqayay meesha baalihii ayaa jabay oo korontadii dhulka daadsaneed sidaas awgeed meesha macnaha waa sidaas darteeda u galweynay wax meesha ka dhacayn wax la qiyaasi kara ma ahan ciidankii adigtaan muddo 40 daqiiqo kadib ayaa ciidan meesha soo gaareen
ciidanka degmada. waxay iga warantaa ciidamada soo gaaray ee halkii uu qaraxa ka dhacay maxay sameeyeen? ciidamadii meesha isku weer ayay ka qabteen inay guriga baarbaaraan iyo wax ayay sameeyeen. kadib dadkii bulshada ayay ku amreen inay guryahooda ku laabtaan iska noqdaan. kadib baadina meesha waxaa jooga waa ciidan oo ciidanka xasilinta ah, ciidan boolis hadda istaan soo gaaray. qof ka mid ah dadka ku nool Oodweyne degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayuu kaasiya dhageystayaal oo faahfaahin ka bixinaya qarxii ka dhacay guri ku yaala degmadaas xilli la sheegay in lagu diyaarinayo gudaha guriga. faahfaahinta halka uu qaraxu ka dhacay iyo wararka la xiriira ayaa Jacfar Kukaay uu ka wareystay afhayeenka ciidanka Cabdullaahi Iimaan Caynte. qaraxa wuxuu ka dhacay degmada Dayniile wuxuuna ku dhacay dadkii diyaarinaya gurigii ay ku diyaarinayeen laftigiisa ayuu kula qarxay inta ayna dibadda ula soo bixin ama ummadda ayna wax ku yeeleen. ilaahay baa ka badbaadiyey, iyaga unbaa ku geeriyooday qaraxa ku dhacay guri jiingado Dayniile ku yaala ayay ku diyaarinayeen, iyagana ku dhintay. sidee lagu ogaaday in ay qarax halkaa ku diyaarinayeen uu ku qarxay? qaraxa waxaa lagu ogaaday guriga unbaa qaraxa ka dhex kacay oo ay ku jireen ayaga. soo ma dhici karto in wax meesha kusii aasnaa ama iska yiilay in ay yihiin? sida warbixinta dadka deegaanka ay kusoo sheegeen waxay sheegeen, kadibna waxaa tegay ciidanka xoogga dalka waxay sheegeen dadkii deegaanka ahaa inay ayaga qaraxa guriga dhexdiisa ku qarxa unbis. meeqa qofaa ku dhimatay? 3 qof ay ahaayeen tiradooda. maxay kala ahaayeen 3 ruux? waa qoladii diyaarinaysay qaraxa waaye. marka gurigaasi xaafad buu ku dhex yaalaa, sidee loo garan waayey oo loo ogaan waayey in halkaa qolyo al-shabaabihii ay degan yihiin qaraxyadana ku diyaariyaan? horta guri ay gaar ugu diyaariyaan ma jirto, laakiin dadkaasi meel walbay degan yihiin, Soomaali waaye dadka diyaarinaya. waxaas midabkaabay leeyihiin, adiga ku egyihiin, lama kala garanayo. laakiin wax walba oo dhaco ciidamada dabagal ku hayo inta badan waa laga hortagaa, inta badan waa lasoo qabtaa. inta qaraxdana ayagay ku qaraxdaa inta badan. waxyeeleynta shacabka waa ku yaryahay waayadan dambe, muddooyinkii ugu dambeeyey. qaraxaasi dhacay xaafadihii ku dhowaa ku yiilay agagaarka waxaad ii sheegtay in guri jiingada uu ahaa. jiingad haddii uu qarax ka dhacana waxaa dhici karto ay u badan tahay in kuwa kale ee ku dhow ay dhibaatadu u gudubto. xaafadihii ku dheganaa iyo kuwii ku dhowaaba waxba maanay gaarin miya? may qaraxa mid saa usii weyn ma aha, mid xaafadaha wax gaarsiiye ma aha. qaraxa hadda waxaa jira mid gaariga kursiga fadhida keliya lagugu xiri karo oo qofka kale dhinaciisa fadhiyaan waxba ku gaareen. marka qaraxa mid saa usii weyn ma ahayn. maxaa loo qaatay haddii ciidamadu ay goobta tageen dadkiina waraysteen? halkee buu ku wajahnaa baa la isleeyahay qaraxaas? kolley dibadda loola soo bixi lahaa, qorshe kalaa la damacsanaa, laakiin ciidanka ayaa faraha kula jiro howlahaas. dadkii ku shaqada lahaa hay-adihii amniga gudaha ku jira hadda. guriga maadaama uu xaafad la yaqaano ku yaalo dadkii lahaa ma la gartay oo ma la ogaaday? waxaasoo dhan hadda lagu daba jiraa, hay-adaha amniga dhawaan go-aan ka soo saari doona, jawaabna ka soo bixin doona. kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka Cabdullaahi Iimaan Caynte oo u waramayay Jacfar Kukaay.